السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qaabka aniga iigu quruxda badan ee aan u karsado suugada baastada ayaa sidan ah. waa ogahay gabdhaha dhan way karsadaan. waxaan hadda aniga markaa isku daraya idinma aanan tusin iyo qaabka aan u suubiyey, laakiin qof walba waxaan isleeyahay waa yaqaanaa. laakiin qaabka aniga markaas iigu quruxda badan oo aan suugada u sameysta ayaa sidan ah. saliid badan inaanan ku darin, baastadana aan mariyo ama saliid ama subag wixii aan haysta markaas. marka sidii ay noqoto markii aan ka dejiyo haddana waa idin tusaya insha allah, iyadoo yacni qudradeydii mid waxna igama jabin. waa u jeediin casaanka gaduudka badan ma aan jecli. marka insha allah waa idin tusaya markaan ka dejinayana. bismillaahi maasha allah tabaaraka allah raxmaan. way bisishahay waa taas qudradeydii iyo wax iga jajabay ma lahan. xaggana waxaan ku haystaa barbarooni iyo basal. markaa ka dejinayaan ku darayaa si ay iigu sameyso caraf qurux udgoon amba caraf. waa kaasaha insha allah. haddii aad comment kasoo bixisiin amba aad weydiisiin qaabkan wax u sameeyey markaasaan idin sharixi karaa insha allah. laakiin hadda just waxaa idin tusaya bas sida aniga aan u sameystay. waa ogahay asxaabta dhan gabdhaha soomaaliyeed oo dhan way karsadaan suugada baastada, way yaqaanaan, laakiin qof walba si ayuu u yaqaanaa. marka maasha allah tabaaraka allah raxmaan aniga sidan ayaan u sameystay.